السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا علي خاليga waa idin wada salaam meel kasta aduunka joogtaan waxaan rajaynayaa in caafimaad qabtaan muuqaalkan horta mar hore ayaan duubay insha Allah marka waxa waay maanta ay suurta gashay inaan idin soo gudbiyo ama idin soo geliyo waxaan rajaynayaa haddaad ka heshaan aad ii support gareysaan oo like ii share in commentiga aan naga iloobin insha Allah waa mahadsantihiin waay waqtiga ay ii saamixi waan jeclaa inaan soo geliyo waqti hore laakiin waxa waaye daal badan iyo adduunyo iyo orod ayaa lagu jiraa maasha Allah tabarakallah marka waa xilli galab waxyaabo adeeg iyo waxaas ayaa u baahnaa marka talaajada ayaan soo nadiifiyay rutiinka cawada ayaan idin la wadaagi doonaa laakiin xilli hore oo galabtii ayaan bilaabi doonaa soo marka waxaan sameeyay waraaqad ayaan ku qortay waxyaabaha allaal wixii aan u baahnayo dhan aan dirsanay waa suuq marka adiga markaas aadaynin oo kale wuxuu ku fiican tahay qof marka u dirsanayso si wixii oo dhan lagaaga yacni aadan u kala iloobin oo kale warqad intaad soo qaadato warqad dheer aad ku qorto wixii aad u baahneed oo dhan يعني بالآدنا ليهاي أنا كان نفتكر كده عنده هو maanta suuqan aadaan u galaa waxaa laga yaabaa waxyaabihii guriga ugu baahnaayeen oo kale ii muhiim ahaayeen oo kaleeto intaan kasoo tago oo waxyaabo kale aan ku mashquulo oo aan soo qaato soo marka waxaan jeclaystay wax sida ugu fudud ee hawsha kuugu fududaanaysa ama adeegga kaleeto ee ugu fududahay meesha aad ka mari karto inay tahay horta marka ugu horeysa inaad qorato wixii ka maqan oo u baahan tahay oo muhiimadu ay tahay guriga ka dhiman soo marka waxaan sameeyay dukaanka carabka kale wixii looga baahan yahay dhanka hoose ayaan ku qoray dukaanka yani caadiga waxa uga baahanaanayo kaleeto halkaas ayaan ku qoray soo maasha Allah tabarakallah wax alaal waxa u baahan oo dhan ayaan halkaas ku soo qortay markuu ku fududaanayso soo adeegii weynoo yimaaday waan kala xareeyay hadartaan caruurta ay xaafada joogto marka waxa iska wada mashquulay adeegii waxyaabihii inta kala bixinayo kaleeto ma idin soo gelinin soo adeegii sidaas ayaan u kala habeeyay maasha Allah tabarakallah caani halkaas ayaan ku soo taxay yogurtka ciyaalka khudaartii waxyaabihii adigu guriga wixii ka maqnaayo dhan ayaa la soo iibiyay maasha Allah tabarakallah soo marka hooy markii aad tahay waxyaabaha wax ku fududeyn waxay tahay horta waxaaga ina plan leeyihiin ama yacni ay ku kala plan gareysan yihiin ama ogta wixii guriga ka maqan wixii ku yaalo waxaas oo dhan marka waxay ka saacideysaa inuu hoosh ku kala fududaato أنا مركز سبيس أيان أباهنا فريج كوكلاتو مركو حسمية قيب وحان جرتو أما عن راشين كوكلاتو مركي عن كريو كلاتو لو ما نوكل راشين كلاس كوكسدا لقى يابا وعاقدة أن كوشو شبا قيب هوسا أيان قليا سو فريج آدي أيو ديري هاي وكنتو كلاتيساس أيان سو سميي caagadaas ayaa ku soo shubay caagada marka waxa waaye hadii aad doonayso hal qayb ayaa ku shubaysaa oo isku daboolayso isku xiraysaa hadii kale inta ku fidsamaan ayay ukunta badan ku qaadaysaa maasha Allah tabarakallah soo ugu dambeeyna alaabtii oo yacni waxyaabihii qaanadan wala horta laga sheekay kar qaanada maalin kasta waan hagaajiyaa waraaqadaas adeeg lagu keen ayaa nafta iga bitiyeen haddana sideedii ayay noqotaa soo markii mashiinka ayaan waxaan kusoo guray wixii alaab wasaq iga ahayo dhan mashiinka ayaan rabaa horta marka hore inaan ku daaro alaabta inay isay dhaqanto intii aan sameynayo kaleeto meesha soo waan soo casheynay alxamdulillaah waxaa xilli ahayd habeen marka xilligan galab dambe xilli dambe ayaa la doonay adeegii ilmihii ayaan cashada iska soo siiyay shaqadu way badan tahay waxaa hawshan ha yaraato yani hadalka ha yaraado hawshan ha badnaato ma fahanti soo miiskii ayaan muluf ka soo siinaya waxaa habeenkii markii la gaaro ama inta caruurta aadan siixin oo kale ama caruurta markay ku socdaan hoosh markaas ugu fiican tahay laakiin anigu wili caruurta ma aan siixin xilligan miiska aan soo masaxaya gabadheed yarta meelahan ay ordaysaa wiilka sidoo kaleeto marka waxa waaye wiilka ayaa qabays ku jiro oo loo soo qabeynaya maasha Allah tabarakallah caruurta waxay u baahan yihiin xilliga horta habeenkii in qabays mulf loogu siiyo kadibna kareen loo mariyo markaas hurdanaya caw macaan oo maasha Allah tabarakallah ma kugu soo kakacayaan ay hurdayaan soo halkaana waxaan sameynayaa marka meeshii cuntada aan ku kariyo kaleeto oo farrig ka siisiya suugada iyo wixii ay gargaareen oo kaleeto muluf ka soo siinaya ofankan waxa iigu jiro birito la qadada la cuni lahaay aniga waxaan ka sii fikiraa birito la maxaa la sii cunaa haddaad aragtaan ha ila yaabin insha Allah waayo markii banaanka aadistaad ay badan tahay adigoo daalan guriga ku soo noqonayso kaleeto waxa u baahan tahay maalinkaas oo kale wixii la cuni lahaa oo kaleeto hore in iskaga sii diyaariso laakiin haddii aad tahay hooyo guriga joogto markasto ama xilli kastaba caadi waaye markaas guriga aad joogto kaleeto cuntada waa kari kartaa laakiin maalmaha qaar haddaadan ku tashan karin ama isleedaho kaleeto maanta meel aadaysa ama shaqo aadaysa xilli dambe guriga imaanaysa caruurta ayaa keenaysa waxaa mar kasta fiican laba maalin cuntada inaad isku karsatid ama cuntada hal nooc ha ku ahaato ama laba nooc cunto kala duwan oo kaleeto intaad samaysato insha Allah caagada dabool leh inay ku guratay talaajada way ku fududaanaysaa adigoo daalan markaad timaado caruurtaada cashada siisato
qabaysto iska seexiso kadibna wixii ka dhiman tala waxaad iska hadaajin kartaa jikadoo kale cafwan jikadoo kale fadhigii waxyaabiyo dhan ayaa iska toosi kartaa markaas xilliga adiga 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo ugu badnaan hal saac ayaa kugu filan habeenkii sidaas ayay ku fiican tahay hawsha marka hawsha waxaan ku jeclahay habeenkii waxaas waaye maasha Allah tabaarakallah marka siinkigii ama meeshii nadiif ayaan kasoo dhigay haddii aad jeclaataan insha Allah muuqaalada sidana kaleeto oo dhiirigelinta habeenkii waxyaabaha ugu fudud oo la qabto guriga hawsha sida kugu fududaa karta insha Allah ila soo wadaaga waa idin soo badi doona insha Allah haddii oo dhanka kumatiga ka arko ma fahanteen marka waa kaasa halkaas waxa iigu jiro cunto yar oo soo hartay oo kaleeto ayaa ku jirta halkaas wax la daadinayo ma jirto wax kasta caagad dabool ayaa lagu shubayaa fridge ayaa la gelishanayaa soo qof kasta markii asagoo daalno yimaado kaleeto talaajada soo abaara oo waxa wuxuu cuno ka soo baara laakiin mid koowaad waxay tahay cunto kulul ama cunto qandac saaid ah iska gelin waligaa fridge-ka waayo fridge-ka ay ka halaabayso raashinka kugu jirno way ka halaabaysaa soo meeshan waxaan ku soo shubay digaaga lugaha waaye iyo baradho karooto caanaha oo yani Greek yogurt la dhahay ayaan ku soo kariyay waa suugo inaba caadi ahayn bariis cad ayaa u karsanaysaa maasha Allah tabaarakallah laga sheekay karo qado yar oo fudud oo kaaliska arag oo maasha Allah tabaarakallah ay ku noqonaysaa soo marka halkan digaageen wuxuu ku soo jirtay muddo hal saac dabka ayaan u gaabiyo wareer ma jirinba halkaas ayaan ku shubanaya caagadaas ayaan ku shubanaa dabool ayuu leeyahay markuu uu qaboobo kadib ayaan fridge-ka gashan doonaa insha Allah soo sida arkaysaan waxaba wax yar oo iska fudud nolosha hada easy ka dhigto oo fududaysto ku fududaanaysaa laakiin haddii aad culays ama yani waxyaabo kula adkaato waxoogaa kugu adkaanaysaa laakiin ani ahaantiido kaleeto ma ay dadka yani qofba waxa ku dhibay aniga waxa ah dadka cuntada u fududahay ma ka fikiro waxa maxaa kari doontaa ma ka fikiro oo waxaan hadaad maanta maxaa la sameyn doonaa laakiin ani waxaan ahay dadka jikada hal mar soo istaago wax alaala waxa maskaxdooda ku soo dhaco kaleeto kariyo alxamdulillah caruurteedana aad iyo aad ay u jecel yihiin waxa aan kariyo hooyo kastana waa sidaas ilmaha hooyo kasta waxay jeceshahay ilmaheedu waxay jecel yihiin ayay u samaysaa ilmaheedu waxay cunayaan ayay ogtahay soo maasha Allah tabaarakallah soo hooyo kasta loogama sheekeynayo caruurteedu waxay jecel yihiin soo halkan waxaan soo qabsaday masaasada gabadheeda yarta ayaan soo nadiifiyay soo dhaqay halkan biyo karkaraya aan ku soo shubtay marka waxaan sameyn doonaa insha Allah biyo xogaa yar oo kulul iyo biyo yar oo qabow ayaan isku door doonaa kadibna caanaha ayaan ku shubi doonaa caanahaas arkaysaan caagadaas ayaan ku soo shubay caagadana magac ayaan ku dhijiyay waayo waxaan diidayaa qof kasta sidoo uu ogaado walaalahay oo kale gabdhaha walaalahay oo kale haday yimaadaan oo kaleeto gabadha caanaheedo kale ima weydiinayo waayo magaceeda ayaa ku qoran caagadaha kaleeto oo raashinka si aysan ugu darsoomin ama loogu dhax qasin ayaan ugu talagalay qof kasta sidoo ku ogaado ama caawimaad kasta aad ka hesho walaalaha oo kaleeto ama qof kasta aad ka hesho si aysan ugu adkaadan shay kasta oo meel kasta uu ku yaalo soo wiilkii yaraa markii loo soo qabeeyay maasha Allah tabaarakallah shaashadiisa ayaa baxayso mashiinka cadiga aad iyo aad ayuu caruurta ugu fiican yahay ilkaha aad iyo aad ayuu ugu caawinaya caruurta markii ka ordayaan oo kaleeto ama cadiga cunug kasta wuxuu ayuu jecel yahay ilmaha qaar waxa laga yaabaa inaysan jeclin mashiinka dhawaqiisa oo kaleeto iyo ka diidayaan laakiin goosaha ayuu u fiican yahay mashiinkan aad iyo aad ayuu ilkaha ugu cadeynaya ciyaalka ama ugu sifeynaya soo muhiim waa caruurta in laga cadeeyo ilkaha intay yar yihiin cadiga in la baro markii ay gaaraan muddo hal sano ama sanad xitaa ka yar ilkaha wuxuu ku xiran tahay ilkaha cunuga markuu soo baxo soo alaabta waa inoo soo dhaqantay maasha Allah tabaarakallah soo hadda waa inoo diyaar soo sida arkaysaan alaabta markuu ugu horeysa aan jikada soo galo baan ku daaray mashiinka muddo 30 daqiiqo u geeyay soo maasha Allah tabaarakallah digsiyaasha ayaan halkan kusoo kala xareynaa alaabta hadda iska sii firaaqeynaya waayo waxaan diiday hadhow alaabo kale markay wasaqoobaan oo kaleeto waxaan rabaa mashiinkiyo ii diyaar ama yacni alaabtii ayaan rabaa hal mar inaan ku wada guro halkan wixii qalin ah ayaan ku wada shubaa halkaasna digsiyada madmadow ayaan ku shubaa soo alaabta waan kala soo soocay xoogaha laakiin markii aan saas sameeynayo kaleeto waxaan jeclahay inaan idinla wadaago laakiin waqtiga ayaa ii saamixi waayay soo marka waxa waa waqtigii oo nasashada maasha Allah tabaarakallah caruurta markii la kala saxiyay hooshi iska soo dhameeyay kadib ayaan waxaan rabaa inaan diyaariyo wax yar oo fruit ama yacni wax yar oo khudaar halkan inaan ku diyaarsado iyo wax yar oo macaan oo lagu wada sheekaysto lagu wada qaxweysto maalintii oo dhan wax idin dhaafay maalintii oo dhan shaqada wixii marka lagu maqnaayo kaleeto waxyaabihii lagala kulmay oo kaleeto shaqadii sida yacni weeyga soo socdo kaleeto maxuu yahay waxaa la qaban doono kaleeto adigu un adduunyo in laga sheekaysto maasha Allah tabaarakallah
soo muhiim waaye inaad naftaada waqti la qaadato يعني caruurta markay ku ka seexdaan jawiga ku dago inaad haysato saacad ugu yaraan inaad nasato oo aad wax yar oo fiika iska soo diyaarsata ama faakiheysi sida loo yaqaan ba af Soomaali ahaan soo fiika hadii aan dhahay afka Swedishka ee luqadeeda afka soo daftay marka karaal noqdo insha Allah soo marka waxaan halkan kusoo diyaarsanayaa wax yar oo jalaato halkan markii aan qudaarta kusoo diyaariyay halkaas macaanka kusoo diyaariyay jalaato laga marmaan waan fahanteen naftu u baahan tahay wax yar oo qabow oo macaan oo kala iska arag ya ayda la kaftaba insha Allah soo muuqaalada sidaan camal hadii aad ka heshaan dhiirigelin insha Allah waxyaabo aad ka heshaan ila soo wadaaga waxyaabo qaar oo gabdhaha qaar ku walaalahayga karaal noqdo insha Allah ay dhaheen nala soo wadaag waxaaba waqtiga ay saamix waay laakiin waa jeclaa inaan idin la soo wadaago maalin alla la markii aan helo ilaahay xaqiisana ay ka qornaatay insha Allah waa idin soo gali doona waa idin la soo wadaagi doona ani ayaa idin ka jecel gabdhahayga quruxda badan inaan idin soo galiyo muuqaalada soo marka waxa waqtiga ayaa ciriiri ugu soo saxankeeni halka aan ku soo diyaarsanay kaaliska arag indhaas oo maroon wax yar oo macaan wax yar oo qudaar naftaha loo raaxay insha Allah muuqaalka inta inoo la soo gaartay qeyri caafimaad iyo bashbash barwaaqo